kulankan labageesoodka ah ee dhex maray madaxda ugu sarreysa shirkadda Taycom iyo wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani ayay ujeedadiisu ahayd wada shaqayn toos ah oo dhex marta shirkadda Taycom iyo telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland baahintiisa dibadda kaas oo ka dhacay kulankaasina xarunta shirkadda Taycom ay ku leedahay dalka Thailand munaasabad ballaaran oo aan hore loogu qaban dawlad Afrika ayaa loo sameeyay madaxda ka socota dawladda Somaliland ee wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani oo uu heliyay agaasimaha waaxda farsamada ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Salebaan Weyne iyadoo heshiiska ujeedadiisu ahayd in baahinta dibadda ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo idaacadda Quraanka Kariimka ah iyo idaacadda Radio Hargeysa ay si toos ah u maamuli doonto shirkadda Taycom 5 iyo Taycom 6 halka ay markii hore baahinta dibadda ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland qaybtiisa qaaradda Yurub gaadha ay baahin jirtay shirkadda RRZ heshiiska ay wada gaadheen madaxda sare ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxda shirkadda Taycom ayaa wixii maanta ka dambeeyay wuxuu noqonayaa in baahinta dibadda ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo idaacadaha Quraanka iyo Radio Hargeysa ay si toos ah u maamuli doonto shirkadda Taycom ee dalka Thailand laga leeyahay